ciddii ganacsataa ahoo warqabta horena waa loola kulmay haddana waa loola kulmaya laakiin cidaan ganacsado ahayn oo waxna dhoofsan waxna keensan iyo dad moogtahay un shido un raba iyo inay horumarka dalka hor istaagaan waya waxa shidadan wadaasi aniga ila tahay marka ciddii ganacsadaha oo dhab ahoo ishii dhabha qabta horena waa loo arkay haddana waa la arkaya dhib male laakiin hadda ganacsato laftigeeda baa hadlaysay oo maalmo waxaa jirta dekadu ay xanibnadu aysan waxna kasoo degin marka ganacsadaha dhaan ka hadlayna waxaa weeye ganacsada waxna dhoofsada dekada waxna waa laga dhoofsadaa laga dhoofiya waxna waa la keensadaa ciddii noocaasi dabcan oo shido qabtaa waa la arkaya laakiin waxay ilaa tahay idina waa taqaano dadka hadlaya meelaha ordayay ma ahayn dad ganacsato dhaba ma aysan ahayn dad waxaa weeye un fidno iyo shido ka shaqeynaya horumarka dalka waxaan leeyahay laga shaqeeyo annagu wanaag baan rabnaa waxaan ka shaqeynaya waa dan ganacsato weye waxaan u aaday Ethiopia maaha anu dan cabdool u leeyahay waxaan ka shaqeynaya waxaa weeye ganacsiga horumara iyo dalka oo horumar hela iyo dekadoo la ballaariyo wanaagaasaan ka shaqeynayna waa in laga fakero mustaqbalka wiilashooda iyo jiilasha soo socda sidai ay dalkani uu wanaag u heli lahaa laga shaqeeyo hadday rabaan marka inay dad kale magan u noqdaan horumarkana hor istaagaan dee wax saxa maalana yeeli mayo cabashada ay qabaan waxaa weeye lacaga lagu kordhiyey marka dowladda gorobshay ma ka bixinaysa arrintaas cad waa la kordhinayaa sababtoo ah 330 iyo 6 milyan baa la gelinaya maxaa marka yani in waxa la kordhaya waa khasab sax wey qofku maalka gashanaya meeshaahi waa inuu dee maalgashigiisa wax uga soo laabtaan buu rabaa marka waxaa la kordhinaya ogtihiin waa taariifo xataa dhaba maahe markii la eego wax xamari laga qaaday iyo berber waad aragteen taariifooyinka markii laisdhinac dhigo waxaa xataa khidmad sax xataa maaha waxa ay ka qaylinayaan marka insha allah waa arkaynaa wixii shidaho jira waa la saxaya waana waa iska dhamaan doonta insha allah laakiin madaxweyne soo maahayn la tashi inaad la samaysaan oo iyaga laftigooda aad markii hore aad qancisaan maya adeer la tashi heshiis baa lasoo galay golo wasiiraan heshiisku maray baarlamaan baa ansixiyey marka heshiiska in la fuliyo wey insha allah